طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan marka ugu horeysa insha Allah taala umahad celinayna Ilaahay subhanahu wa taala isu keenay waxaan anaga awoodna ma ahan runtii intaan qof inta isu timaado oo hadii aysan qadarta Ilaahay ahayn iskama imaan karto just meel cidla kama imaan karto laakiin wax kasta bilaadada Ilaahay iyo rabitaanka Ilaahay bay ku socdaan inagu just waxaan leenahay sababtii inaan la imaano iyo wixii markaas iska technician ka ahaa sa Ilaahay isu keenay subhanahu wa taala waqtina inaan wada qaadano qadaray waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan gabdhaha walaalahan ah hooyooyinka Soomaaliyeed ah sharaftooda wadanka ku lahaa iyo macallimiintooda oo runtii inagu si gooniya noo sharfay inagu waxaan u aragnaa in sharaf noo tahay intaan qofood markii koowaad taariikhda Soomaaliyeed inaan maaragtay xarun cusub oo aan degayno ku furano waa sharaf aan meel cidla ka helayno runtii hadii xataa price lagu bixinayo iyo lacag astaahisho wax kasta iyo biladba in lagu bixiyo laakiin alxamdulillah ilaah baa inoo qadaray inaan helno sharaftaas marka saddexaadna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo laftirkiisa inaan si gooniya u xuso reerkaas macallin Bashiir Cabdi Daahir iyo xaaskiisa hooysareedo oo iyagana ah runtii macallin Bashiir macallin uu ah bariga wadanka imaanay fadli fara badan oo nagu lahaa anaga iska dhalinyaraha Soomaaliis ah oo iska bariga aan imaanay isaga wuxuu ku jira dadkeena barbaariyay baaskadna uu ahaa macallin waxa laga yaabaa inuu qaar badan idinka kamid ah uu soo ahaa ilaa ay hadda reen kastoo naga maqan yahay nala jooga oo ruuxdiisa spiritkiisa markasta waxaan dareemayna in nala joogto qofkii wax aad ku kordhiyana waxa wanaagsan aad xusto hadii aad wax kale ugu abaal gudi kareynin marka إن شاء الله تعالى وحان ربا مركا محد علمت way fara badan tahay dibna uu dhigana rajaa saaxiibkay wuxuu yiri maxad calinta waxaan ka hormarinayna cudur daarka laakiin ka reefilaan ahaan waxaan kala waraa si gooniyan ugu mahad celiyo walaashan Jamiilo laftirkeeda oo iyadana inaga waqti xun ku jirna oo taankan aad u celiyo loogu yahay laabta inta noo garaacday tir gabdhaha walaalaha ee imaanaya inta alla inta u baahan tihiin gurigeeda diyaar baa runtii waxay tahay culays weyn oo naga dhacay laakiin waxaan dareennay in markii aan ragga ku mashquuli jirnay wiilasha wax fara badan baan iska daba laalaaban jirnay inagoo diyaar garow 8 bilood ka hor mararka qaar sameyn jirnay laakiin dumarka iyo hooyooyinka markaan hawlahooda aadnay ilaahayna uu noo sakhiray ninkana wad nacaawiseen walaalaheena sidoo kale nacaawiyeen dareenka marka xarunta insha Allah buugana wad noo saxiixi doonteen marti ka sharaf badan intaan noo saxiixaysa buugana bilaabaysa oo xarunta dadka soo booqday ah kale ma garan karo meel ay ka imaan karto mahad baan idin wada jeedinayna dhamaantiin si yaro kooban waan kala sheeko bagan doonaa ururkan kanaba mas'uuliyiintooda ay wada joogaan maxamuud haduu yiraahdo gudoomiye ku xigeen ma ahay ama waxa waa executive director keena weeyaan laakiin inagu mas'uuliyadaha waxa nooga muhiimsan wada shaqaynta iyo team spirit ka ayaa markaas qofka magaca ama title-ka markaas uu ku dhacayo waxa laga yaabaa inuu dadka uusan waxba cilmi fara badan ka badnayn ama wax gooniya dheerayn laakiin waa mas'uuliyad lagu xambaarayo qofka marka magac lagu tilmaamayo laakiin waa team baan nahay wada shaqeeya qof kastana uu muhiim yahay ilaa qofka geeskan jira ilaa qofka geeskan jira waxaan isdheerno gooniya ma jiraan teamkaas ayuuna kanaba maalintii la aasaasay 95 ilaa iyo maanta uu ku shaqeynaya oo aan ku wada joognaa nama midayaan waxyaabaha mararka qaar ay Soomaalida ama isku disho ama maaragtay isku wax waxaysa laakiin walaaltinimadaas iyo Soomaalinimadaas iyo aabahan macallin Bashiir Cabdi Daahir iyo dad lamid ah tusaale fiican noo noqday ayaa maaragtay Ilaahay noogu sakhiray intaan wada joogno saasna u wada shaqeyno inagoo fariin faraanti ahaan wada joogno hawlo fara badan baan qabanaa sportska qayb weyn buu ka yahay hawlaha aan qabano dabcan waa toolka dhalinyarada iyo marka laga hadlayo ummadda loogu adeegayo albaabada la garaaci lahaa macallin jaan baan uga tagayaa ururka qaybtiisa sportiga mas'uulka ah iyo hawlaha sportiga laakiin arrimaha kale dhalinyarada loo qabto ama hadii ay noqon lahayd laga saacido waxbarashada hadii ay noqon lahayd la wacyi geliyo hadii ay noqon lahayd iskuuladooda iyo waxooda in la nidaamiyo counseling iyo waxaas dadka la talin in la sameeyo waxaas oo dhan waan sameynaa oo xaruntan waxaas oo dhan bay qaban doontaa marka laga tago qaybta sportiska waxaa kaloo jira in vision aan leenahay dheer oo Soomaaliya laftirkeeda ilaa international relations aan sameynay afar xarun baan ku leenahay ilaa hadda soo far Soomaaliya Muqdisho xarun baan ku leenahay Kismaayana xarun baan ku leenahay Baydhabo xarun baan ku leenahay Beledweyne xarun baan ku leenahay xaslay afar magaalo waaweyn oo magaalooyinka Soomaaliya ka tirsan ayay yihiin magaalooyin kale oo rabnay way jiraan ilaa hadda aan gaari la'nahay laakiin hadafku waa cad yahay waa ilaa magaalo kasta oo Soomaaliya ay joogto dhalinyarada Soomaaliyeed laga helayo inaan ka helno xarun ku dhisan mabaadi dhalinyaranimo Soomaalinimo Islaamnimo iyo walaaltinimo inaan ka helnaan rajaynayna insha Allah taala dabcan hadafku markuu ku dheer yahay waxyaabo fara badan baad maraysaa mararka qaar way ku suurtagelaysaa inaad gaarto meeshii aad rabtay iyo goolka aad higsanaysay mararka qaarna caqabad baa ka hor imaanaya laakiin wuu noo cad yahay waana insha Allah taala gaari doonaa maalinta noqoto qasam ma dadkeena hadda jooga inaan gaarno laakiin jiilalka nagu xiga hadii ay gaaraan xataa insha Allah taala waan rajaynaa in la wada gaari doono hadalka hadii la bilaabo lama joojin karo time-kuna aad baa loo xadeeyay waan ka xumahay inaan aad u dul carcararo laakiin
waxaan idin leenahay ilaahay idinka abaalmariyo sharaftaad noo yeesheen bilcagsi innagaadna sharafteen idinku markaad noo timaadeen innagaadna qiimayseen innagaad wax kale naga dhigteen oo aanan ahayn aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waana mahadsantihiin soo dhawaada